jariirada loo yaqaano the middle east eye oo carabta dalalka carabta ka soo baxdo ayaa maanta qortay maqaal kulley dadka arrimaha bariga dhexe la socdo ee la yaabeen dalalka loo yaqaano qatar iyo imaaraadka carabta oo gaashaanka u duruuray iska diiday qorshe madaxweynaha masar uu soo bandhigay al-sisi qorshahaasoo ahay in ciidamo isku dhaf ah oo sida nato oo kale difaac adag ah ee carabta iyo muslimiinta la dhiso kuwaasoo fadhigooda uu noqon doono qaahiro waxaa diiday sida ciwaanka uga jeedaan qatar iyo imaaraadka carabta ayaa diiday sacuudiga oo shuruud la yaab leh waxaan dhan hadda soo ifbaxaya wixii qarsoonaaya hadda soo shacbahayo ilaan dadka meesha fadhiyay aa kiskis usoo hadlayo sacuudiga oo shuruud la yaab leh la yimid maxay tahay shuruuddaas labalabada ah iyo sidoo kale dalalka iiraan iyo turkiga oo ayaga aanan carab ahayn oo dalalka carabta ah khaliijka ay ku heshiiyeen in kuwaas aan lala heshiinin ama aan lagu soo darin heshiisyada hoososeyda ah ee carabta u dhexeeya adi al-ultimo jariirada waxay leedahay kulankii la rabay in lagu midoobo oo dalalka isku imaadaanoo difaac adag oo ku hareereysan israa'iil in la dhiso kulankii loo fadhiyey wuxuu kusoo gabagabay kulankii in al-sisi oo xanaaqsan uu meesha iskaga tago diyaarad kore oo masar dib ugu laabto iyo labadii isfahmi karto oo isku kalsoon inay heshiiso taasoo isla markii dhacday kadib markii sacuudiga iyo bakistan oo ka mid ahay labadii dal ee kulankaas fadhiyey ee ayaga heshiis u gooni ah oo difaac ah oo hubka nuclearka xitaa uu quseeyo ee wada gaareen heshiiskaasoo ka dhashay heshiis daradii ama is-afgarad waagii guud ee dooxa waayahay marka jariirada horta hadalka sheekada waxay tahay al-sisi ninka al-sisi la yirahdo masar wuxuu soo bandhigay wuxuu dhahay anigoo masar ah 20,000 oo ciidan ayaan ku tabarucayaa waa haddii aan isku afgarano ciidamo nato oo kale ah oo muslimiina carab ah haddaa isku keeno 20,000 oo ciidamo masar ah iyo agab military diyaarado kulli waa ku tabarucayaa laakiin wuxuu yiri al-sisi fadhiga ee ciidamadaasi nato oo kale ah fadhigooda waa inuu noqdo masar inuu noqdo masar waa in uu ahaado sacuudiga waxaa la yiri adiga 15,000 oo ciidan ah ku tabaruc maadaama aad tahay dalka labaad ee quwad la dhihi karo dhanka carabta maanta intaasaa laga rabaa dalalka kale idinka 10,000 isku keena masar waxay tiri anigaa horboodayo anigaa hogaaminayo commandiga meesha looga taliyo waxay noqonaysaa waa fadhigaa la fadhiyaa qolkaa la fadhiyaa al-sisi wuxuu yiri fadhiga waxay noqonaysaa masar lacagta iyo ciidamada inta ugu badan anigaa bixinay sacuudigaa soo booday yaabkan dhegeysta intaysan qatar iyo imaaraad carab hadlinba sacuudigaa soo booday wuxuu yiri aniga diyaar qorshahaas al-sisi waa ogolahay laakiin hal meel kaa diidanahay yaa dhahayo boqorka sacuudiga kulaha waxaa kaa rabaa saldhigga ciidamadan ama fadhigooda waa inuu noqdo sacuudiga waa inuu noqdo sacuudiga laga dhigo al-sisi wuxuu yiri sarta adiga saldhigga ha noqdo masar maadaama halista hadda meesha aan ka sharayna ay tahay israa'iilna ay tahay cadowgeena saldhigga waa inuu noqdo masar adiga labadii dal sacuudiga iyo masar way isku afgaran waayeen meeshee saldhigga halka xarunta ugu weyn ee saldhigga halkee laga dhigaa saasaa lagu kala booday carab wax weyn inay ku kala booda la rabay waxay isku fahmi waayeen waa sacuudigii laandheeraha ahaa iyo masartii laandheeraha ahayd waxaa la isku afgaran waayey xarunta commandiga meesha looga talin doono ciidanka okay iyadoo kulankii isfahan waaga noocaas uu jiro haddana waxaa soo booday qatar imaaraadka carabta oo yiri masarey anaga qorshahan uma bogin saldhigga xarunta meesha laga dhigo iyo sheekadaas iyo ma soconayso diba ugu soo fikireynaa laakiin waqti xaadirkan waa diidnay qorshahaas da'aawdid qatar iyo imaaraadka carabta si toos ah u dhahay al-sisi indhihiya guduutay ciil dartiis waaya waxaa la leeyahay marka kulankii qololaa la kala galay dalalka khaliijka kuwan dooxa aan dhahay jordan iyo qatar iyo imaaraadka carabta iyo kuwan hoosooseega yare reer saliid reer macsharo meel isku kuusan ayaga waxaa la leeyahay maqaalka uu leeyahay waxayba shirka waxay ka dhex fahmeenba inaanan turkiga iyo iiraan lagu kalsoonaan karin
meesha u socdaan iyo waxa ay ka hadlayaan iyo agrees qaabka Erdogan meesha wuxuu la yimid wuxuu yiri hadalla adag iyo go'aamo adag iyo dagaal Israa'iil aa lagu bilaabo sheeko noocaas aniga iga dhex baxday beena Erdogan carabtii yaryareedii waa soo boodeen waxay dhaheen aniga mushqushaan daabka ka samaysan iskaga kaadinayna habeen walba cuntada macmacaankana Turkiyo adiga waa ka fogtaa meesha baa xagga jirta anagaan walaalo kulli in Iran iyo Turkiga ay dhaheen wadamada qaliishka carabta kuwaas heshiisyada aan gaari doono yaan lagu soo darin kii Masarna waaba wuu cararayba markuu fahmay in qorshaha uu wado oo xitaa asaga Masar ay leedahay lacagta iyo ciidamada ugu badan anaa bixinaa laga diiday waa lagu kala bood cid isku kalsoon meesha ma jirto aniga laakiin gabagabadii waxay ila tahay shakada markaa fiiriyay Sacuudiga xaq u leedahay in Pakistan heshiis ee ayada la gasho oo hubka nuclear-ka Pakistan qaarkiis Sacuudiga in la keeno horta waa arrin aysan Masar iyo Carabta kale aysan filayn oo la yaab kala noqotay waxaa maqli doontaa maalmaha soo socdo heshiisyo noocan oo kala oo bilateral laba laakiin dalka loo kala ordayo waa Pakistan maxay la Pakistan hub nuclear u yaal cidii heshiis la gasho difaaciidu waa adiga hubka nuclear-ka waa sababta Ruushka loo tataaban laayahay ciyaar ma waa sababta Shiinaha loo tataaban hubka nuclear dahaysatid nin adaga tahay marka Masar iyo hadeertaan waxa la tugtuugaya Pakistan anna heshiiska Sacuudi oo kale ila gal kuwan Carabta ayagana fiiriya shakada elefantina araba dadka ahlu aqliga kuwan Carabta Mareykan saldhig ciidan meesha ugu yaalaa sababta ugu weyn Mareykan uga baqayaan waa nuclear-kaas oo Mareykan uu leeyahay ana idin difaacayo cid soo weerar karta mal marka waxay u muuqataa Mareykan inuu sii dhuuqsaday heshiiskiisii ama rabitaankii Carabta ay rabeen Mareykanku wuu sii adkay baash dab uu sii kuwan kalena Pakistan loo kala ordaa Pakistan iyo Sacuudiga ayaga heshiiskooda dhag waay dhinacu u dhacay bal waxyaabaha kale ee soo socdo ee heshiisyada kale labada oo dal nuclear ay dal Carab ay gali doonaan waa arki doonaa waxa aniga ii muuqato dalalka qaar inay xanaaqi doonaan sida Masar oo kale Shiinaha heshiis ee la gali doona kan Sacuudiga iyo Pakistan oo kale time will tell